محمد فرح العداء الدولي وبطل ألعاب القوى. maalmihii ugu dambeeyay waxay warbaahinta adduunka oo dhan hadal haysay dukumeentari laga diyaariyay taariikhda orodyahanka caanka ah ee Mo Farah. Most people know me as Mo Farah, but ma ihi qofka aad ii malaynaysaan ama aad ii garan og tihiin ma ahan magacaygu Mo Farah. waa qayb ka mid ah xogihii dahsoonaa oo ku gadaamnaa nolosha Mohamed Farah oo uu daaha ka qaaday dukumeentarigan badankood waxay ahaayeen xogo fajac iyo layaab ku riday qof kasta oo maqlay ma ahan Soomaali oo kaliya balse gaal iyo Muslim qofku garan ogaa Mo Farah inaan 9 sano jir ah oo laga soo waday dalkiisii iyo dadkiisii in loo geenayo qaraabadiisii oo ku noolaa qaaradda Yurub markii uu yimid Ingiriiskana laga qaatay dhammaan dukumeentiyadii oo kala xiriiri jiray qoyskiisa laguna xiray guri ku yaala deegaan oo uusan qofna ka garanayn qaraabana ku lahayn la marsiiyay nolol lagu qeexi karo adoonsi lagu adeegtay laguna qasbay inuu cuntada u kariyo una qubeeyo carruurtii ay dhaleen qoyskii xooga ku haystay muuqaalkiina maanta ayaynu si kooban ugu dul istaagi doonaa baalashii qarsoonaa ee Mohamed Farah markiisii ugu horeysay daaha ka qaaday lana wadaagay dadka magaciigu Cabdiraxmaan Maxamed halkanina waa Fatih Media ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Mohamed Farah haddii aynu ugu yeerno magaca loo garan og yahay ee ah Mo Farah ayaa ah shakhsi ay Soomaalidu in badan ka dharagsan yihiin taariikhdiisa iyo guulaha isdaba jooga ee uu ka soo hoyay tartan kasta oo uu ka qayb qaato. waa orodyahanka kaliya ee dalka Ingiriiska awood u yeeshay inuu xaqiijiyo inuu hal mar 4 bilood oo dahab ka qaato ciyaaraha Olombikada wuxuuna kala qaatay sanadkii 2012 oo uu 2 bilood oo dahab ka qaatay ciyaarihii Olombikada ee lagu qabtay magaalada London. sidaasi oo kale sanadkii 2016 wuxuu mar kale ku guuleystay 2 bilood oo dahab ah xilli uu ka qayb qaadanayay ciyaarihii Olombikada ee lagu qabtay magaalada Rio de Janeiro. wuxuuna sidaas ku noqday orodyahankii ugu horeeyay taariikhda dalka Ingiriiska ee ku guuleystay 4 bilood oo dahab ah. guulahan isdaba jooga uu xaqiijiyay Mo Farah ayaa ka dhigtay boqorada Ingiriiska mid siisa naanaysta sir oo ah naanaysta ugu sareysa ee uu qof gaaro dalkaasi waxaana gaara ama loo bixiyaa dad dhif iyo naadir ah. boqorada dalkaasi ayaana ah qofka bixiya. haddaba waxaa dhacday in documentary ay diyaarisay shabakada BBC lana baahiyay 12 bishii aynu soo dhaafnay in Mo Farah uu soo bandhigay sir dahsoon oo ku saabsan noloshiisa oo aysan dadku horay u la socon dhalisayna hadalhayn xoogan. most people know me as Mo Farah, but dadkoo dhami waxay ii yaqaanaan Mo Farah laakiin ma ahan magacaygu. sheekadayda runta ah waa inaan ku dhashay Somaliland wuxuu ahaa magacaygu Xuseen Cabdi Kaahin. Abdi Kahin. Despite what I've said in the past, si ka duwan sidii aan horay u sheegay waalidkay weligood kuma noolaan gudaha Ingiriiska. markii aan 4 sano jir ahaa waxaa lagu dilay aabahay dagaaladii sokeeyay ee ka jiray Soomaaliya. torn apart. kadib waxaa dhacday inaan kala habownay aniga iyo familkaygii aniga iyo hooyaday waan isweynay. kadib aniga waxaa si sharci daro ah laygu keenay UK waxaana laygu keenay magacaan ahayn magacayga oo uu lahaa wiil la yiraahdo Mohamed Farah. Mohamed Farah ama haddii aynu dhahno Xuseen Cabdi Kaahin ayaa markuu 9 sano jiray loo bixiyay dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London. wuxuuna sheegay haweeneydii uu la safray ama kaxaysay uusan horay u aqoon ama horay ula kulmin safarkiisii ka hor. Mo Farah ayaa sheegay in markuu tagay Ingiriiska ay ula dhaqantay haweeneydan si ka baxsan bini'aadantinimada iyadoo ka dhigtay shaqaale. waxaa jiray waraaqo ama dukumeentiyo uu watay oo ay ku xusnaayeen meelaha uu kala xiriiri karo qaybo ka mid ah qoyskiisa oo ku noolaa Yurub. uuna u haystay markuu soo raacayay haweeneydan in ay u wado laakiin wuxuu sheegay markii ay yimaadeen Ingiriiska ay ka qaaday dhammaan waraaqihii uu sitay
kuna jexjexday hortiisa kadibna ay ku riday qashinka. wuxuu sheegay inuu markaa garuursaday inuu lugaha la galay mustaqbal mugdi ah oo uusan garanayn goorta uu dhammaanayo. From day one, the lady, what she did wasn't right. I wasn't treated as part of the family. I was always laga bilaabo maalintii ugu horeysay sida ay la dhaqantay haweenaydan ma ahan wax la aqbali karay ilamana dhaqmin sida inaan ka tirsanahay qoyska. waxaan ahaa ilmaha loo diro shaqo kasta oo guriga ku saabsan. waxaan ahaa sida qof iyaga u shaqeeya. laga bilaabo maalintii ugu horeysay sida ay la dhaqantay haweenaydan ma ahan wax la aqbali karay ilamana dhaqmin sida inaan ka tirsanahay qoyska. waxaan ahaa ilmaha loo diro shaqo kasta oo guriga ku saabsan. waxaan ahaa sida qof iyaga u shaqeeya. waxay ii xadideen qayb yar oo ka mid ah guriga iyagoona ii sheegay inaan masaaxadan yar ku noolaado aana u soo dhowaan qaybaha kale ee guriga ay iyaga ku nool yihiin. haddii aan rabo inaan wax cuno waxa ay ahayd shaqadaydu inaan waardiyeeyo carruurtii ay dhashay haweenaydan. waan u qubayn jiray waxaana u karin jiray cuntada. sidoo kale waan hagaajin jiray. haweenaydan ayaa igu tiri haddii aad rabtid inaad la kulanto qoyskaaga ama reerkaaga waxba cid kale ha u sheegin. haddii kale way ku qaadanayaan waxayna ku geynayaan meel fog oo aadan reerkaada ka heli doonin. iyadoo ka cabsi qabtay in Mo Farah uu la wadaago musiibada uu ku jiro macallimiintiisii ama dadkii kale uu awoodda u lahaa inuu la hadlo. markii uu jiray 12 sano ayay qoyska haweenaydan u oggolaadeen Mo Farah inuu galo iskoolka, taasoo ku tusinaysa sida ay ugu reebeen asaagii oo ay xitaa u xarimeen inuu waqti hore iskoolka ku biiro sida carruurta dhigiisa ah. Mo Farah ayaa ku noolaa nolol adoonsi ah oo aan wax jixinjiixa iyo naxariis ah lahayn, iyadoo haweenaydan ugu faa'iideysanaysay ka fogaanshiyaha uu ka fog yahay qoyskiisa iyo nolosha qurbeed ee uusan waxba ka fahansanayn, iyo xitaa da'diisa oo aad u yareed oo uusan awood u lahayn inuu cid kale u dacwoodo. culayska haystay daraaddii ayuu sheegay Mo Farah in marka uu aado iskuulka uu soo xiran jiray albaabka suuliga kadibna uu halkaasi ku ooyi jiray maadaama oo uusan haysan qof uu uga dacwoodo mixnada uu ku jiro. wuxuu sheegay si uu isku ilowsiiyo duruuftan aadka u qalafsan ee uu ku jiray inuu ordi jiray xilliyada uu joogo iskoolka iyo marka uu jaanis helaba si uu u ilaabo nolosha walbahaarka leh ee uu ku jiro. Mo Farah ayaa sheegay in mid ka mid ah macallimiintiisii iskoolka oo la oran jiray Alan Wilkinson uu ogaaday nolosha uu ku jiro iyo ciqaabta lagu hayo. kadibna wuxuu la xiriiray qolyaha ka shaqeeya arrimaha bulshada oo ka caawiyay Mo Farah inuu helo qoys kale oo Soomaali ah oo uu la noolaado ka hor inta uusan Wilkinson ka caawin Mo Farah inuu qaato dhalashada dalka Ingiriiska sanadkii 2000. intii uu socday barnaamijkan documentary-ga ah, Mo Farah ayaa sheegay inuu in badan ka fakiro inankii uu magaciisa ku soo galay dalka, meesha uu joogo iyo sida ay tahay noloshiisuba, isagoo u rajeeyay inuu meel kasta oo uu daafaha adduunka kaga sugan yahay uu nabadqab ku noolaado. wuxuuna sheegay in wiilkiisii uu ugu magac daray Xuseen oo ah magaciisii hore oo ay hooyadiis ula baxday. Mo Farah ayaa sheegay inay carruurtiisii ku dhiirigeliyeen inuu daha ka qaado sheekadiisii qarsooneed ku dhawaad 39 sano, isagoo sheegay inuusan rabin inuu ku noolaado nolol dahsoon oo leh siro mugdi ah oo ka dahsoon dadka kale ay ugu horeeyaan carruurtiisu. Mo Farah oo hadda jira 39 sano ayaa ah mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu magaca weyn dalka Ingiriiska. sidoo kalena muuqaalkan documentary-ga ah ee laga sameeyay ayaa sababay hadalhayn ballaaran oo qabsatay dhammaan warbaahinta ugu tunka weyn adduunka, waxayna warbaahin kasta hadal haysaa noloshii adoonsiga ahayd ee uu soo maray Mo Farah yaraantiisii. laakiin waxaa hubaal ah in qof kasta oo meel gaaray oo aynu maanta arkayno jinsiyaduu rabo ha haystee meeshuu rabana horumar ha ka gaaray, in noloshiisu ay soo martay marxalado aad u qaraaraa oo ka dhigay qofka uu yahay maanta. mana jirto guul sahal lagu gaaro